qof baa aad loo waaninayaa, aad loola hadlayaa, dhinacyo badan wax looga sheegayaa. Markaasina haddana arkanaa qofkaasi inaan waanada qaadanaynin. Marar badan baynu u soo joognay isagoo lala hadlayo, isagoo la waaninayo, isagoo waayo aragnimo iyo wax sheeg badan lala wadaagayo loo sheegayo. Haddana weli waxba isma bedelin. Qofku waa qofkii, dhaqankiisa isma bedelin, shakhsiyadiisa isma bedelin, qaab araggiisa isma bedelin. Alla iyo wax iska bedelin qofkaas ma jiro. waxaan isweydiinaa oo aynu idhahnaa qofkan maxaa ka khaldan, sidee wax yihiin? qofkan intaasoo cid ay wax u sheegtay, intaasoo cid ay waanisay, intaasoo jeer maaragtay loo hoga tusaaleeyey, xaggee wax ka khaldayin? maxaa khaldan uu qofkan u hagaagi la'ay? muxuu u hanuuni la'ay? qofba intaas oo jeer aynu aragnay isagoo salaada aan tukanin oo lagala hadlayo, haddana salaada lagala hadlayo. waalidku inkaar qaba ku ahaa oo wax weeyaan aanu baari u ahayn, markaasaa loo sheegay oo lagala hadlay waalidka iyo arrintiisu inaanay arrin sahlan ahayn. markaasaanu haddana waxba iska bedelin. hadda wuu ogyahay, waa loo sheegay, waxa lagu yiri waalidku xaqa ilaahay subxaanahu watacaala xaqa ku xiga weeyaan. ilaahay baa le aniga caabuda, waalidkana oo samafal u sameeya. haddana isma bedelin. yacni waad ogsoontahay waxa ilaahay subxaanahu watacaala xaqiisa ku xiga inuu hawl adag yahay, haddii laga tago la dayaco. iyadoo noocaa tahay haddana stiil weli isma bedelin qofkan. wan yaabnay marka waxaan leenahay maxaa ka khaldan arrintan. ilaahay baa subxaanahu watacaala qur-aanka kariimka inuu u sheegaya in ay jiraan dadyaga qaar oo si kasta oo wanaagga loogu sheego, si kasta oo hanuunka loogu sheego, si kasta oo waxa wanaagsan lala wadaago iyagoo aan hagaagaynin. markaasaa ilaahay subxaana watacaala nebigu la hadlaya, wuxuu ku leeyahay in taxris calaa hudaahum fa ina allaha laa yahdii man yudil wamaa lahum min naasiriin. maxamedow, haddaad ku dadaasho hanuunkooda, inay dadkani hanuunaan oo ay waantoobaan, wanaagga ay qaataan, dad fiican aakhire iyo adduunba ay noqdaan, haddaad ku dadaasho fa ina allaha laa yahdii man yudil. qofka lumay ee isagu taa go'aansaday, ilaahay subxaana watacaala hanuunin maayo. wamaa lahum min naasiriin, mana laha cid u gargaarasa ma laha. halkaa laba qodob bayn ka qaadana. qofka xun si kastoo in wanaagga ula wadaagno ee waxa weeyaan qofkaasi ku dambaynaya, xumaanta ku dambaynaya, inaan waxba ka bedelaynin. laakiin innaga waxaa inala gudboon inayna cidna ka daalin, ama ha xumaada ama ha samaada, inaan wax u sheegno. gaalka ah ayuu ilaahay subxaana watacaala ka quusan waayey. ayaad arkaysaa intaas oo jeer isagoo u hoga tusaaleynaya qur-aanka kariimka, axaadiista nebiguna calayhi salaatu wasalaam saasoo kala samaynaya. yacni dhaqanka muslimka ma aha qofka si kastuu u xun yahay inuu ka daalo. ma aha dhaqanka muslimka, kama rajo go'ayo. horta innaga qodobkaas wayn samaynanaa. qofkaynu waxu sheeganay aan aragnay inuu wax ka khaldan yihiin, ka daali mayna wax sheegiisa. mar un baa laga yaaba ilaahay subxana watacaala inuu ku anfaco. noocan ayn ka hadlana haddii uu yahayna oo nooca iyagu aan qaadanaynin, waanadiiyo wanaagga aan qaadanaynin, xumaha ku dambaynaya oo aan hanuunka waxba ka taraynin, dee inagu waajib bayn gudanay, abaal iyo ajar baan samaynay, mas-uuliyad baan qaadnay dadkan inay isku dayn inay hagaagaan oo dad wanaagsan ay noqdaan. waa qodobka labaad. waxaa laga yaabaa qofku mararka qaar inuu faham khaldan ka qaato arrinta hanuunka iyo luminta, oo uu dhaho dadka qaar, dadka hanuunsanna ilaahay baa doonay oo jeclaaday inay hanuunaan, kuwa luunsanna ilaahay baa la jeclaaday hanuunka. waxaan leeyahay luunsanaanta iyo habowga. waayahay, hadday saa tahay maxaynu ka imtixaananay? managaa imtixaananba marba haddii qofka hanuunsanna ilaahay iska hanuuniyey oo aanu isagu gudihiisa waxba ka imanon, doorasho gudihiisa aanay jirin, kan halaabayna aanay doorasho gudihiisa jirin, dee isku mid bay nahay labadeenube. kana yani haddii la odhan lahaa ilahay baa kaana jeclaaday inuu lumo, kana allaa jeclaaday inuu maaragtay hagaago. cadaaladda ilaahay kama mid aha inuu addoomihiisa dhaho kaana waxaa la jeclaaday hanuun, kaana waxaa la jeclaaday habow. may aayaddan balo fiirso, alla wuxuu leeyahay fa ina allaha laa yahdii man yudil. qofka isagu lumay ilaahay ma hanuuniyo. haddaba fiirso, ilaahay ma hanuuniyo qofka lumay. qofka isagu lumay ee isagu taa doortay, yacni hanuunka iyo habowgu labaduba waa go'aan gudaha qofka uu ka qaato. ilaahay waa u fududinaya, waa run, wuu u toosinaya, waa run, laakiin waa doorasho isagu doortay. ma nihin majbuuriin, dad la khasbayo oo maaragtay yacni aan doorasho lahayn ma lihin. dad saa ma nihin. waa fikrad khaldan inuu qofku yahay qof majbuur ah oo khasban oo dirqisan oo wax walba maaragtay madax u gelaya oon is ogeyn markuu waxaan samaynay. maysaas ma nihin. labadaa qodobba waanu ka qaadananaa oo mid yahay dadka si kastay u xunyin inaynan ka daalin, ka labaadna uu yahay habowga iyo hanuunka, labaduba inay doorasho yihiin ee aanay ahayn wax ilaahay subxaana watacaala qofka uu iskala jeclaaday. haddii taa noqon lahaydna cadaaladda alle ayaanay ka mid noqon lahaynba oo ay baalmarsanaan lahayd. ilaahayna waxaan ogsoonahay
ilaah caadil inuu yahay cidisa ka cadaalad badanna aanay jirin wanaagsane waa ilaahay salaam